musharaxiintii la tartamaysa iyagana waa mahadcelinayaa. آدم أحمد موسى. بسم الله الرحمن الرحيم. حفيزك arrimaha ardada wuxuu ogeysiinayaa dhammaan ardada jaamacadda Badda Cas in ay u dareeri doonaan ardada jaamacadda doorashada golayaasha kala duwan oo ugu horeeyo golaha dhexe xildhibaanada taasoo noqon doonta 26 27 28 insha Allah waxa ku xigaya doorashada gudoomiyaha ururka ardada oo iyadoo noqon doonta haddii Ilaahay ogolaado 3 bisha 3aad 2022 guddiga doorashooyinka ee ka shaqeynaya doorashada ururka ardada jaamacadda Badda Cas waxa ay soo saareen habraac doorashada lagu qabanayo uu ka mid yahay anshaxii iyo shuruudihii laga rabay qofka musharaxa ah iyo qofka codeeyaha saadarteed marka ardada jaamacadda Badda Cas waxaan kula dardaarmay inay akhriyaan anshaxa loo dejiyay doorashada oo ay ugu muhiimsan tahay marka doorashada ay dhacayso xamaas baa jira marka qofka xamaaska inaysan gelin in uu ka tilaabo shuruucda jaamacadda iyo dhaqankii suubanaa dalkeena wuxuu ka sheeganayaa ama dhibaatada ugu weyn dalka hortaagan waxa waaye maamul xumo iyo hoggaan xumo waxyaabaha keenan waxaa ka mid ah musuqmaasuqi qabyaaladda iyo inaan la ilaalinin xeerarkii iyo waxyaabihii lagu heshiiyey saa darteed marka in halka aanu ku baraatik karayno wax walba lagu heshiiyey iyo anshax iyo wanaagga waa wax muhiim ah